سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن ونكسن داوديال قضبضاد ورركنا كما قلي دونتان وحاكم ذا dagaaladii abid ugu cuslaa ayaa ka qarxay gobolka Tigreega oo dhaxaya xogaga TPLF iyo ciidamada huwanta ee militariga dalka Itoobiya deegaanada Zalambesa Addis Ababa Rahmo Daro Takle guud ahaan waxa ka dhacay dagaalo aad u culus oo hubka aadka u culus ay soo adeegsanayaan xogaga TPLF iyo ciidamada dowladda Itoobiya iyadoo halkaasi dagaal aad u culus uu ka dhacayo xogaga Tigreega ayaa sheegay duulaan aad u ballaaran oo lagu soo qaday magaalada Shire inay ciidamadoodu si weyn uga hortagaan jabkii abid ugu cuslaana ay gaarsiiyeen ciidamada dowladda iyo ciidamada kale huwanta ee garabka siinaya dagaalkuna uu deegaano hor leh ku sii faafayo iyadoo dagaalyahanada TPLF ay sheegeen inay qudha ka jareen saraakiil aad u tiro badan oo hogaaminaya ciidamada duulaanka aadka u ballaaran ku haya deegaanada Abo Rahmo Daro iyo Takle iyo deegaano kale oo wali ka soconayaan dagaal aad u xooggan oo jilbaha la soo dhigtay hubka aadka u culusna la soo adeegsanayo sidoo kale Getachew Reda afhayeenka TPLF ayaa ku eedeeyay ciidamada Eritrea iyo kuwa Itoobiya inay beegsanayaan ciyaalka iyo haweenka ayna leynayaan maatida isagoo ku eedeeyay ciidamadaasi inay duqeymo aad u culus deegaanka Europe ka geysteen ayna ku dileen boqolaal rayida walina halkaasi ay duqeymo aad u culus ka wadaan isagoo Getachew Reda u baaq aad u culus u diray beesha caalamka sidoo kale dagaal aad u culus ayaa ka qarxay xuduudda deegaanka Canfarta iyadoo halkaasi ay dagaalo aad u culus ay ku dhaxmarayaan xogaga Tigreega iyo ciidamada dowladda Itoobiya iyo kuwa maamulka Canfarta oo dhinacaasi garab siinaya deegaanka Barahle ayay ka dhacayaan dagaalo aad u culus iyadoo xogaga TPLF ay mar kale bilaabeen dagaal rogaal celis oo aad u ballaaran oo la iskaga difaacayo ciidamada dowladda iyo saaxiibadooda dagaalkuna uu ku sii soconayo deegaan hor leh sidoo kale ciidamada dalka Eritrea ayaa dagaal culus ka wada xuduudda deegaanka Tigreega iyo dalka Eritrea iyadoo xogaga TPLF iyo kuwa Eritreanku ay deegaanadaasi dagaalo culus ku dhaxmarayaan walina dagaalku ku sii fidaya deegaano hor leh ciidamada Eritreanka ayaa si weyn uga garab dagaalamaya militariga dalka Eritrea dalalka midowga Yurub Mareykanka xogaga oo walaalaf xoreynta shacabka Oromiya ayaa sidoo dagaalo culus kula jira ciidamada dowladda Itoobiya iyagoo sheegay inay guulihii abid ugu cuslaa ka gaadheen dagaalka ay kula jiraan ciidamada dowladda Itoobiya oo walaalaf ayaa sidoo kale wada abaabulkii abid ugu cuslaa ee bulshada Oromada la iskugu dabaridayo si ay dagaalka si wada jira Oromada ugu gasho ayadoo dagaalyahanada oo walaalaf ay shirinayaan bulshada Oromada guud ahaanba gobolada dhan ay ka wadaan abaabulada culus oo lagula dagaalamaya dowladda Itoobiya iyadoo dagaalyahanadu guulaad u ballaaran ka gaadhayaan dagaalka ay kula jiraan ciidamada dowladda federaalka Itoobiya sidoo kale dalalka midowga Yurub Mareykanka UK ayaa guud ahaan baaqaad culus ka soo saaray dagaalka ka soconaya gobolka Tigreega iyagoo ugu baaqay xogaga TPLF iyo dowladda Itoobiya guud ahaanba si degdeg ah inay u joojiyaan dagaalka xooggan ka soconaya gobolka Tigreega miiska wada hadalkana la iskugu yimaado si loo soo afjaro colaadda gobolka Tigreega sidoo kale Eritrea ayay ku eedeeyeen xasuuqaad banka wada gobolka Tigreega bila shuruudna ciidamadeeda guud ahaan dalka Itoobiya ay kala baxdo si xal waara loogu helo colaadda ka taagan dalweynaha Itoobiya
militariga dalka Soomaaliya ayaa weli sii beegsanaya xogaga argagixisada iyadoo howlgalladu weli ka soconayaan deegaanada ballaaran oo ka tirsan dalka Soomaaliya. ciidamada dowladda Soomaaliyana howlgalladoodii ay deegaanada ballaaran ku ballaadhiyeen argagixisada ayuu jabhad culus ka soo gaadhay dagaalada xooggan ee ka soconaya koonfurta Soomaaliya iyadoo ciidamada dowladda Soomaaliya deegaano hor la gacanta ku dhigan. qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeena ku eegaynaa. haddayna u gudagallo wararkani oo faahfaahsan, gobolka Tigreega waxaa ka dhacay dagaal aad culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda Itoobiya iyo kuwa huwanta. gobolka Tigreega dagaal aad culus ayaa mar kale dib uga qaraxay iyadoo xogaga TPLF ay weerar rogaal celis ku qaadeen ciidamada huwanta ee dagaalka xooggan ku haya gobolka Tigreega. deegaanada Salambesa ay ka soconayaan dagaal aad culus iyadoo Salambesa xogaga Tigreega ay sheegeen inay si weyn uga difaaceen ciidamada weerarka xooggan ku soo qaaday dagaalkuna uu deegaano hor la ku sii fidayo iyadoo xogaga TPLF guulaad u ballaaran sheeganayaan dagaalka ka soconaya Salambesa. sidoo kale Addis Ababa, Ramo, Daro, Tekla ay gudaha ka dhacayaan dagaal aad culus oo jilbaha la soo dhigtay iyadoo ciidamada huwanta isku dayayaan guud ahaanba deegaanadaas inay gacanta ku dhigaan. hase yeeshee xogaga Tigreega ayaa sheegay jabkii abid ugu cuslaa inay gaadhsiiyeen dagaalkan ay guulo aad u ballaaran ka gaadheen ciidamadii weerarada xooggan soo qaadayna jabkii abid ugu cuslaa uu ka gaadhay deegaanada guud ahaan ay gacanta ku hayaan ciidamada TPLF. sidoo kale magaalada Shire ayaa lagu dagaalamaya u dhaxeeya ciidamada huwanta waa militariga Itoobiya iyo Eritrea isku dhinaca iyo xogaga TPLF ayaa sheegay guulo waaweyn dagaalkaasi ka gaadheen. waa sida uu sheegay afhayeenkooda Getachew Reda. afhayeenka TPLF ayaa ciidamada Eritrea iyo kuwa Itoobiya ayaa weerar joogto ah ku haya deegaanadaas. dagaalyahanada TPLF-na dhigooda ayay u horeen wayna baabiyeen wayna xasuuqeen dagaalkuna weli waa uu soconaya. guulihii abid ugu cuslaa ayaana ka gaarnay dagaalkaasi jabkii abid ugu cuslaana waan gaarsiinay. Getachew Reda ayaa sheegay ciidamada Itoobiya inay duqeymo u geysteen dad rayida bulsho aad u tiro badan ay ku xasuuqeen deegaanka Europe loo yaqaano ayadoo halkaasi duqeymo culus ka soconayaan welina ciidamada dowladda ay duqeymaha aadka u culus wadaan isagoo ugu baaqay beesha caalamka inay si weyn u cambaareeyaan duqeymaha joogtada ah ee ciidamada Eritrea iyo Itoobiya sida wadajirka uga wadaan gobolka Tigreega. sidoo kale militariga dalka Eritrea iyo xogaga TPLF ayaa ku dagaalamaya xuduudda gobolka Tigreega ayadoo deegaano hor leh dagaaladu mar kale ay dib uga qarxeen. deegaanka Cafarta ayadana dagaalo culus ka soconayaan ayadoo xogaga TPLF iyo ciidamada dowladda Itoobiya kuwa maamulka Cafarta ay xuduudaasi ay ku dhaxmarayaan dagaalada culus guulo ballaaran ay kala sheeganayaan ayadoo hubkaadka culus laga maqlay deegaanadaasi. ciidamada OLF xoreynta shacabka Oromiya ayaa sheegay inay guulo waaweyn ka gaadheen dagaal ay la galeen ciidamada dowladda Itoobiya welina OLF ay howlgallada sii wada iyadoo jamhadu sidoo kale abaabul aad u culus deegaanka Oromada ka wado oo guud ahaan kugu dibaridayo bulshada Oromada si ay dagaal xooggan ula galaan dowladda Itoobiya si wada jirahana loola dagaalamo dhaqdhaqaaqyada jamhadana si weyn looga dareemayo guud ahaan gobolka Oromiya. dalalka Mareykanka iyo midowga Yurub ayaa guud ahaan xaalada guud ee gobolka Tigreega ciidamada Itoobiya iyo kuwa Eritrea weerarka ay ku hayaan ayagoo sheegay in miiska wada hadalka la isku yimaado ciidamada Eritreankuna ay ka baxaan kuwa dowladda Itoobiya iyo Tigreeguna ay miiska wada hadalka isku yimaadaan. qodobreedkan ugu dambeeyay militariga dalka Soomaaliya ayaa howlgalladiis wali sii wada asagoo sheegay jab culus inuu gaarsiiyay argagixisada guulihii abid ugu ballaaran ay ka gaadheen dagaalka ka dhacaya koonfurta Soomaaliya. howlgalkan ayna weli wada keenin ilaa ay gudahan argagixisada Soomaaliya laga saaro. tan iyo kulanti dambe wacan. salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.